xaawo maxamuud faarax oo loo garan og yahay xaawo jookar waxay wada ka tahay mooto bajaajtan cadaado horay loogama aqoon gabar wada ka ah gaadiidka mooto bajaajta loo yaqaan balse daruufo kala duwan oo nolosheeda la soo gudboonaaday ayaa ku qasbay in ay ku shaqayso mooto bajaajtan xaawo waxay mootadan ku shaqaynaysaa muddo 3 maalin ah iyadoona xilli hore oo subaxii ah soo shaqo tagta xaawo jookar waa hooyo ay u joogaan 5 carruur ah oo aabbahood ay kala tageen muddo ka hor si ay u maarayso nolosha qoyskeeda ayaa ku qasabtay in ay bilowdo halgan dheer oo nolosheeda ah daruufo jira awgeed baan wadaa ilmaha yararka ah ee jooga ilmahaas marka ka maareeya ilmaha yararka dugsigooda iskuulkooda wax walba aniga laga rabo qof iga koreeyo waxba igu siima jiro aniga ahaan wixii markii wiilka xogaagiisa laga jaro oo kii shaqshidaalka laga jaro marba waa si adugu $3 maran ka helay mar $4 iyo bar baan ka helay maanta lama gaarin marka $4 ama $3 maanta dhan aad shaqaynayso oo caawa la soo hoyatay nolosha qoyska maxay ka bedeli kartaa kubad wax weyn ay ka bedeli kartaa waayo ma aanan haysanin intaasba inkastoo ay la kulanto daruufo aysan wajihin ragga ku shaqeeya mooto bajaajta haddana caqabadahaas kama aysan hor istaagin in ay sii wado hawshan ay ku dabarta nolol maalmeedkeeda maadaama ay ku soo hungowday goobo kala duwan oo ay shaqo u raasatay dhanka kale xaawo waa xirfadle dhanka caafimaadka ah ka hor intaysan bilaabin wadidda mootadan waxay mushaharlaan uga soo shaqaysay cisbitaalka guud ee degmada Cadaado balse muddo sannad ah kadib waxay u tartantay boos kale hase yeeshee imtixaankii ay gashay kama aysan helin wax cadaalad ah oo waa lagu musuqmaasuqay niyad jab kadibna waxay iskaga tagtay shaqada isbitaalka oo ay ka doorbiday wadidda mootadan sida ay u sheegtay TV-ga caalamiga ah Universal isbitaalkan aan ka shaqeynay ayaan dhaweyto oo tagay 9 bilood baan ka shaqeynay oo dadka maatada Soomaaliyeed u shaqeynay lacag la'aan ku shaqeynay kadib waxa la yiri imtixaan u gal imtixaankii markaan galay imtixaankii waa laga reebo anigoo dhibcaha u sareeya galay baa laga reebay dada inta yimaadeen bay yiraahdeen dad ha noloo galiya meeshan lagu shaqeeyo ma aan aqoon ma shaqeysan meeshan marka ilmahaygii oo qadayaan fiirsan waayay marka saasan mootada ana wada shaqala waan ka waayay magaalada waan wareegay dhaqaalaha ka soo gala mootadan waa wax aad u yar balse daruufaha kala duwan waqtiga adag iyo mawjadaha nolosha ee ay la hardamayso ayaa ku qanciya xaaladda xilligan ku jirto shaqadan adag ee ay bilowdo xaawo kama aysan hor istaagin in ay sii wado waxyaabaha kale ee ay ku horumari karto mustaqbalkeeda sida waxbarashada wixii ka dambeeyay 6 maqribnimo waxay buugaagteeda u qaadataa iskuulka Ilays ayadoona dhigata galaaska 9aad ee iskuulka waxbarashadeeda maqribkii ilaa hameenkii waxbarashadeeda waa hameenkii kuma shaqeeyo maalintii kaliya ku shaqeeya iskuulaan dhigtaa dadka macaamiisha u xaawo ee raaca mootadeeda waxay ku sifeeyeen qof aad u macaamiil wanaagsan maanta waxaan kamid ahay macaamiisha xaawo oo si gaarka u raacday sida qaaska intaba waan ku faraxsanahay in maaragtay ay noqoto bajaajile waan raacay in badan aan raacay waa ka fiican tahay wiilasha markii maaragtay xagga maaragtay waditaanka iyo xagga qiimo dhimista intaba waa ka muhiimsan tahay aniga xaawo macaamiisheeda ahay gabar hagaagsan waaye gabar nolol maalmeedkeeda si wacan rabtay inay u dabarto waaye shaqada baabuurtu ay leedahay ama ay leeyihiin ninka darawalka ah oo kale ayay wadataa marxaladaha adag ee hadda ay wajahayaan xaawo iyo carruurteeda waxaa ka mid ah dhanka hoyga waxay degan yihiin qol jiingad ah oo aan awood buuxda u lahayn in uu ka celsho qoraxda iyo qabowga gurigan horta aan deganahay alxamdulillah gabar walaashay oo diris aan nahay ba guriga iga siisay tiri isaga tabaruc
kiradii iska bixin waay marka saasay tiri guriga isaga deganow isaga laftigiisa roobka iyo waxa isma celinayo meelo badan roob ka soo deeganaya jira halkan waa taqaanaa daadada soo mara daadadkaas cagdhig iyo midna ma lahan daadadku iska ka marayaan si kastaba Xaawo Maxamuud Faarax oo loo garoogay Xaawo Joker ayaa ah gabadhii ugu horeysay ee cadaada ku wada mooto bajaajka gaadiidka loo yaqaano balse hamigeeda ayaa in ugu dambeynta ka guul gaarto halganka igu jirto nolosha qoyskeeda Mubaarak Maxamuud Aadan TV-ga caalamiga Universal cadaado